ayaa waxa ay saadaashu tahay yaa ku guuleysan doona koobkan qaramada Yurub iyadoo ay kala dhicin oo la dhihi karo waa isu dhigmaan inkastoo ay wadanka Denmark aan hore loo saadaalinaynin ayagoo hore ugu guuleystay koobkii 94 qaaradda Yurub oo waagii ay ciyaartoydii hore ay ciyaari jireen marka ayaga naftooda hadda Ingiriiska walwal badan baa dhinacaas ka jira sababtoo ah hore ayay u qaadeen wadankan Denmark koobkaas marka lama dhihi karo kooxdaas badinayso footballka sidiisa ama ciyaaraha inkastoo lagu kala ciyaar badan yahay laakiin khibradda iyo tababarnimada iyo difaaca iyo weerarka iyo qadka dhexaba waxay ku xiran tahay taktiigga uu ciyaaro markaas macalinka kooxda haddaba saadaasha dhinaca caawa Italia iyo Spain dhinaciina idin deynaya iyo fikirkiina tan kale oo ayadana la ciyaari doona Brito UK iyo Denmark ayadana kooxda ku badin doonto iyo saadaasha afarta koox qofka koobka guuleysan doono iyo wadanka uu hooyan doono koobka qaaradda Yurub iyadoo sanadkan kooxihii waaweynaa oo lisdaayi koobka waa qaadi doonaan sida Faransiiska Germany kooxihii waaweynaa Portugal kooxo badan ayaa haray oo footballka sidiisa waa noocaas sababtoo ah lama saadaalin karo marnaba waa taktiigga tababaraha ka soo horjeeday iyo kooxda kula ciyaaraysa khibradooda heerka ay gaarsiisan tahay haddaba barnaamijkeen ciyaaraha waa noo sii socon doonaa waxaan ka warsugaynaa fikirkiina iyo sida aad noogala qayb qaadataan qaybta falanqaynta barnaamijyada ciyaaraha adduunka mar walba aan qayb idinkugu soo gudbino hadday noqon lahayd waddanka gudihiisa iyo dibaddaba waa Suxuf Salwa Stockholm Sweden